wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa ku warramaya in xiisad culus ay ka taagan tahay xerada ligle oo ay ku sugan yihiin ciidanka jenaraal jimcaale islamarkaana ay goodoomiyeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland kuwaasoo doonaya inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyo ay sameeyaan ciidanka sida tooska u hoostaga jenaraal jimcaale ee danab xilli taliya jimcaale la filayo inuu soo gaaro magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland iyadoo khilaafka jimcaale iyo danina marba marka ka dambeyso uu cirkas ku sii shareerayo waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey xiisada ka taagan magaalada garowe gaar ahaan xerada liglo ay ku xariisan yihiin ciidanka jimcaale soo dhowo muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibaynta tamintan aynu ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa wadahadaladii u dhexeeyey jimcaale iyo sidoo kale dani ay garwadeenka ka ahaayeen isimada dhaqanka iyo siyaasiyiinta maamulka puntland halkii ay ku dambeeyeen qodobada lagu heshiiyey iyo sidoo kale waxa iska bedelay qodobadii hordhaca ahaa ee dhinacyadu isla qaateen ayaan faahfaahinta kugula wadaagi doonaa hagaaga wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa ku warramaya in xiisad culus ay ka taagan tahay xerada ligle kadib markii halkaasi la duldhigay ciidamadii ugu badnaa ee ammaanka dowlad goboleedka puntland xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dowlad goboleedka puntland ciidamo aad u fara badan ay gelisay gudaha magaalada garowe iyo sidoo kale dhammaan waddooyinka ka yimaada dhinaca magaalada laasacaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari soomaaliya wararku waxay sheegayaan in ciidanka ammaanka dowlad goboleedka puntland ay go'aansadeen islamarkaana amar lagu siiyey ay gebi ahaanba ku goodoomiyeen xerada iyaga oo diiday in dhaqdhaqaaq ay sameeyaan ciidanka ku jira xeradaasi ee danab ee sida tooska u hoostaga jenaraal jimcaale ciidanka jimcaale ayaa dhankooda waxay ku hanjabeen haddii laga dulqaadi waayo goodoominta inay dagaalami doonaan islamarkaana ay si xooga isaga dulqaadi doonaan ciidanka siciid cabdulaahi dani uu duldhigay sida markaasi hadalkay u dhigeen war qoraal ah oo bartooda facebook ay ku baahiyeen ciidanka danab waxay sheegeen inaysan marnaba u dulqaadan doonin caburin iyo sidoo kale caga juglayn islamarkaana ay ka hortegi doonaan tallaabo kasta oo hogaamiye siciid cabdulaahi dani uu dhankooda u soo qaado waxayna saacado kooban u qabteen ciidanka la duldhigay xerada ligle ee jenaraal jimcaale markaasi inay ka hortagaan ciidamadiisa dhaqdhaqaaq ay sameeyaan uu siciid cabdulaahi dani ku amray jenaraal jimcaale ayaa la filaya inuu magaalada garowe soo gaar laakiin maamulka puntland ee siciid cabdulaahi dani ayaa gebi ahaanba gaashaanka u daruuray imaanshaha jenaraal jimcaale iyada oo horay markaasi dhinacyaday ugu heshiiyeen in marka hore jimcaale uu yimaado garowe kadib ay wada hadlaan islamarkaana heshiis ay ka gaaraan khilaafaadka iyo wax walba oo markaasi ka dhexeeya laakiin dani ayaa mar kale waxa uu gebi ahaanba diiday in jenaraal jimcaale uu haayo xilka qaybta 54aad ee dowladda federaalk soomaaliya ee usoo magacowday uu garowe cag soo dhigay waxaana uu yidhi jimcaale marnaba cag ma soo dhigi karo deegaanada puntland si gaar ah magaalada garowe isaga oo haaya xilka taliyaha qaybta 54aad ee dowladda federaalk soomaaliya ee u magacowday haddii uu doonayo jimcaale inuu soo galo magaalada garowe ama deegaanada puntland uu cag soo dhig waa in marka hore uu ka tanaasulaa ama uu iska casilaa xilka qaybta 54aad ee dowladda federaalk soomaaliya ee u magacowday waxaana uu sheegay haddii uu ka dhagaadeego isku dayo in jimcaale uu isku diyaariyo dagaal ballaaran oo dowladda puntland markaasi ay la geli doonto siciid cabdulaahi dani ayaa u muuqda in uu isbedelay mowqifkiisa kadib maalmo la sheegay in dhinacyadu ay heshiis ku gaareen in gebi ahaanba hoos loo dhigay xiisadda iyo sidoo kale khilaafaadka militari ee dhinacyadan u dhexeeya waxaynu wararku sheegayaan in jenaraal jimcaale uu ku adkaysanaya in isaga oo ah taliyaha qaybta 54aad uu tago magaalada garowe iyo deegaanada puntland laakiin siciid cabdulaahi dani ayaa gebi ahaanba xirtay waddooyinka ka yimaada magaalada laasacaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari soomaaliya waxaana uu diiday gebi ahaanba in jenaraal jimcaale oo ahaayo taliyaha qaybta 54aad ee dowladda federaalk soomaaliya uu cag soo dhigo deegaanada dowlad goboleedka puntland si gaar ah magaalada garowe dowladda puntland oo ka hortegaysa dhaqdhaqaaqa ciidanka jimcaale ayaa waxa ay saaka ciidankii ugu badnaa ay dul dhigtay xerada ligle oo ah mid ka mid ah xerooyinka ugu waaweyn ee dowladda puntland gudaheeda ay ku leeyihiin ciidanka sida tooska u hoostaga jenaraal jimcaale oo isagu markaasi doonayo inuu magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland uu gaaro dhexdhexaadintii ay wadeen isimada dhaqanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta maamulka puntland ayaa u muuqata inay fashil qarka u saaran tahay maadaama siciid cabdulaahi dani uu isbedelay mowqifkiisii ku aadanaa wadahadallada iyo sidoo kale inuu sameeyo tanaasul siciid cabdulaahi dani ayaa diidmadiisa ku aadan in jimcaale gebi ahaanba uu cag soo dhigay isagoo ah taliyaha qaybta 54aad deegaanada puntland waxa ay muujisay sida markaasi dani marnaba uusan u doonaynin in jimcaale oo xil ka haya dowladda federaalk soomaaliya kana mid ah saraakiisha ciidanka dowladda